hay-adaha ammaanka dalka Norway booliiska gaar ahaan qaybta hubka u qaabilsan ayaa lagu soo waramayaa in labadii sano ee u dambeysay ay dib uga soo ceshteen dad Norweji ah kuwa oo ay ogolaansho ahaan u siiyeen in ay hub haysan karaan. Tiradan ayaa lagu soo waramayaa in ay aad u sii kordhayso, waxa ayna gaartay in ka badan 2,000 oo Norweji ah oo hubkii ogolaanshaha ahaa ee ay haysteen dib loogala noqday. Arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay walaac laga muujiyay hubkan ku sii fidaya guud ahaan dalka Norway. Tirada guud ee Norwejiga ay haysata hubka noocyadiisa kala duwan ayaa lagu soo waramayaa in ay hadda gaarayso 478,000 oo Norweji ah kuwa oo haysta hubka noocyadiisa kala duwan, kiibana uu haysto hal ama laba ama ka badan. Arrintan ayaa waxa ay boolisku sheegeen in ay baaritaano xooggan ku sameeyeen, waxa ayna intaa ku dareen in sanadkii tagay ee 2024 ay ka soo xareeyeen ilaa 902 qof oo Norweji ah kuwa oo hub kala duwan ku haysta gudaha dalka Norway. Hayeeshee sanadkan ayay sheegeen in tiro intaa ka badan oo gaaraysa 158 qof oo Norweji ah lagala noqday hubkii sharciyeysnaa ee ay xaqa u lahaayeen oo ay guryahooda ku haysteen. Arrintan ayay boolisku sheegeen in ay walaac xooggan ka muujinayaan maadaama hubkan uu ku sii fidayo dadka shacabka ah gacantooda, kuwaasoo noocyo kala duwan u adeegsanayo. Agaasimka booliska ee dhanka hubka oo lagu magacaabo Annalise ayaa ku waramayso in muhiimadu ay tahay in marka hore la buuxiyo shuruudaha ama dhaqanka loo baahan yahay in uu yeesho qofka loo ogolaanayo ama la siinayo in uu haysto hub. Arrintan ayay sheegtay in baaritaan xooggan lagu sameynayo qofka oo kiisaskiisa iyo nooca noloshiisa iyo habka uu u nool yahay baaritaan adag lagu sameeyo, markaa kadibna loo ogolaado in uu hubka haysan karo. Hubka ayaa la sheegay in noocyo kala duwan loo isticmaalo oo ay ka mid tahay ugaarsashada iyo sidoo kale waxyaabo kala duwan oo tartamada ay ku jiraan, iyo sidoo kale hubka oo loo isticmaalo difaaca nafta. Arrintan ayay sheegeen booliska in ay baaritaano kala duwan ay sameeyeen ay ku go'aansadeen in dadka tirada intaa la gaaraya ay ka soo ceshtaan hubka. Waxaana lagu soo waramayaa in intii u dhaxaysay sanadkii 2013 ilaa 2023 tirada dadka ku baxay hubka sharciga ah ee ay haystaan dadka shacabka ay gaarayso ilaa 9 qofood. Waxaana xusid iyo xusuusin mudan in haweeney 75 jir ah sanadkii 2023 uu ninkeeda ku dilay hub sharciyeysan oo uu haystay, markii ay nafta ka baxdana isaga israaciyay oo isna isku dilay isla hubkii u sharciyeysnaa. Arrimaha noocan ayay booliska walwal iyo walaac xooggan ka muujinayaan. Waxa uuna sheegayaa agaasimaha booliska dhanka hubka u qaabilsan Bjørn Vantvik in arrintani ay keenayso in baaritaanada la xoojiyo, sidoo kalena miir qabka dadka haysta hubka la fiiriyo. Waxa uuna tusaale u soo qaatay in qofka uu haystay hub muddo dheer oo uu maskax ahaan fiyo, ha yeeshee uu maskax ahaan bedelmi karo marka uu weynaado ama uu dareemi karo niyad jab iyo sidoo kale culaysyo kala duwan oo nolosha ah, taa oo ka dhigi karta qofkii uu ahaa shalay qof aan ahayn. Hubkan ayay hay-adaha qaar sheegayaan in aysan suurtagal ahayn in dadka loo wada jiido, maadaama dad badan oo ka mid ah ay ugaarsi ahaan ugu baxaan duurka si ay ugu soo ugaarsadaan. Sitaa lamidana ayay sheegeen in dadka qaar ay muhiim tahay in ay haystaan hubka, taasoo keenaysa in boolisku uu isku dayo in uu xakameeyo la socda dhaqdhaqaaqa iyo waxa ay sameynayaan dadka ogolaanshaha la siinayo, isagoo baaritaan xooggan ku sameynayo. Hubkan ayaa waxaa laga muujinayaa walaac kala duwan maadaama in ka badan 478,000 oo Norweji ah ay haystaan hubka noocyadiisa kala duwan, ama qofkiiba uu haysto hal ama laba ama ka badan oo hub ah. Halka warka kuwada ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine.